sidaan u malaynayo film codays markaan bilaabay anu gidhashay ilmo dhalay hadda ana runta kuu sheegaya xaqiiqada waxay tahay soo xisaab wixii film codays 4,000 iyo kalkoos waa dhaafaa malayna war ninkaas aniga garanaya ninka ma dhiman waxaan kaa doonayaa nolol ama geeri ninka ina gacantayda soo gelido ingiriis iyo carabi iyo talyaani iyo af urdu iga joojiya iraahdaa markaan la joogo waa waxaan tirayno geli af soomaaligeena garsoor cid aan fasax weydiisanaya ma laha aniga dalkayga waa ka qabanaa tuugadan khaa'imiinta magacaygu waa saalax macalin cabdulle saalax dheere tani waa sheekadayda ani degmo ka tirsan gobolka galguduuda ku dhashay oo la yidhaha galhariye barta anoo yar hooyaday aabay iga soo kaxeeyeen xamar aan soo galnay waxbarashada intaan ka bilaabay iskool intaan ka dhamaystay jugti maxamed siyaad barraan dhacday waa la kala qaxay iskool meeshaasuu ku xirmay waxbarasho meeshaasay ku xirantay wallaahi horta barnaamijkan hadda aan caan ku noqday oo bulshadu ay ugu taqaano ani marnaba xisaabkama igu jirin ani dhanka ganacsiga ayaan u badnaa laakiin waktiga aan wax walbaba ku barahay barnaamijkan maadaama oo dagaal ay dhacdhaceen baagamuudda dhallinyarada ee iska ahayd wiilal oo saaxiibadeeye oo af urduuga yaqiinay barnaamijka wax waa ka faahfaahmaynay oo aad aan filmaanta u jeclaa jiray macnaha daawashadooda waa xiisay jiran wiilashii aan maalin isku soo qaadqaadno qalabka marka oo wax lagu codeeyo af urduug ma taqaanin haa waxaa jiray oo horay aan u fiirsanay فيلم دل أمير خان أو دل يرادو أو حلقي محمد سياد برهن العودية سيد الصومالي ده أي أدو حيسينها ماشي وحان نوغا بحضي إن قناع سان كالسماء يكرم أوكي أنا كل رجلي وحان اسكو ضيه مالنتي الدنباء وحسوستا فيلم رامشسترا اللي يرادو أنا والله فدي ودتكيس أدو بدنا يعني واحدة صالحو نين نجا قو نكان كغبت نكي ما كلا والله بين توصل وجلي وإلي بين مركز واحدة إما أنت ما حنوق فير سنة دي صدق فيلني مركورتي يعني السمايان حنوق فير سنة دي ما حنوق العدويس هو حايري عرته واحد معنيس إن أنا فاهمه أنا شرعيا وحويا وحان معنود أنا فاهمين ضلق ما اسكدور وحان معنود إنا فاهمه أكوريد بس ماشي قبل hadda ka horreeyay waxaan ku moodayay inaad carug yar tahay laakiin waxaad taa tug dhalo oo waxaad doonaysa maya inaad hadalka aad ka rumayso horta saamayn markii la yidhaahdo shaqada waqtigaas midda ka hor taallo saamaynteeday leedahay aniga especially saalaxaan markaan ka hadlaayo saacaddaas shaqada iyo hor taallo saamayn ayay u leedahay ma faraxsan intay hor taallo shaqadaas farxad waxaa igu sokeeda markaan iska hor wareejiyo oo aan dhammeeyo shaqada furiini wax bay dalbanee furiinka waxaa shuruudaan ku xiray shuruudaasna waxaa waa inay gabadha ii soo wareejiso ورون الصومالية والنحو dhalinyarada qaar inayna fahamsanayn ilaa iyo hadda
aad moodaa af soomaaliga laga rabo annaga waxaan tirnaa luuqad kale bulshadeenna aan macnaa luuqaddaas iyo dalkaas dabeecadihiisa iyo dhaqankiisi aan u sheegaynaa maxay nagu fahmi karaan af soomaaliga marka halow haddaan ku celiyo halowdii inaan ka tira maaha haay inaan idhaa maaha waa ku salaami inaan idhaa waxaa waa firi wax baan turjumaad leedahay isla luuqadda haddaad ku celido wax aad turjunta male macnaha inta oo dadku waxyaabo badan ayn fahamsanaynaa jira waa u sheegaa war adiga ingiriis iyo carabi iyo talyaani iyo af urdu iga joojiyaa idhaahdaa markaan la joogo waa waxaan tirayno geli af soomaaligeenna macnaha meelo oo aan saga eegna waa jiraan oo macnaha luuqatulcarabiya sukayna keento laakiin maxaa la rabaa af soomaali naxwiyaan leenaha af soomaaliga naxwiga ahaa in macnaha bulshada loogu gudbiyaa wanaagsan waxa ma og tahay 30 sano ka hor isla meeshaan hadal laygu yidhi ayaan doonayaa maanta anigana in aan kugu idhaahdo ani ruuxaygaa jecel qaybta siyaasadda qaybta sharciyada qaybta oo ciidamada macnaha meelaha adag waxyaabahaas oogaa waxaad moodaa ani in aan ka war adagahay dhallinyarada marka meelahaas waxaa laygu dhiibaa qofka lagu dhiibi maayo adiga haddii codkaaga uuna buuxi karin waxa uu ka hadlaayo codkaaga hadduuna ku fadhin ma lagu dhiibaayo waryaa naagtaada intaynan canugtaa aynan dhalin aniga addoontayda ahaa jirtay waxaan tuyadan joogoo dhanna aniga abisade waxaan doona ayaan ku samaynayaa mustaqbalka wallaahi horta qofka cimrigiisay ku xidhan tahay adduunyadu waa kuu sii dhiibe maalinba maalinay kuu sii dhiibe laakiin adii brofeshinno kale inaad leedahana waa wanaagsantaha hal brofeshinnaal aadna ku ekayn mustaqbalka nolosheenna inaan hormarinno ayaan kula jawaynaa insha allah haddii